Asalaamu calaykum asxaabta soo laabasho wanaagsan. Waxaan ku dhex jirnay koorsadeenii Odoo. Waxaan maraynaa cashiraantii purchase-ka ku dhex jirnay. Maanta waxaan galaynaa cashiraantii ugu dambeeyay purchase-ka. Daraad waxaan soo qaadanay ayadoo alaab la soo iibsanayo oo ayna deyn tahay aan lacag la bixinin. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay purchase ama receive item with cash. Alaab inay noo imaato cashna aan ku bixino macnaha. Alaabtii noo imaatay inaan lacagteedana aan iska bixino. Marka alaab soo gadanayna inaan purchasing-ka payment ku darno. Daraad waxaa uga tegaynay anagoo purchasing-ka bilka la dalaacayna bis. Lacagtaas waxay galay account payable iyo inventory-go badanayaan deyntan lagu leeyahay. Marka maanta waxaan rabnaa inaan caadi lacagtii marka alaabtii aan gadano inaan lacagteena iska bixino. Sidee u samayn karnaa marka? Tusaale ahaan we receive Softage Electronics waxaan ka helnay 5 laptops oo Core i3 ah 5 xabo laptop oo Core i3 mid walba marka qiimihiisu waxa waa $200 waaye. Marka maanta waxaa ka bixinaynaa for cash ku soo gadanaynaa anagoona ka bixinaynaa akoonka loo yaqaan cash on hand. Lacagta totalkeeda waa $1000 marka. See u bixinaynaa marka? Waxaa tagaynaa purchase aba tagaynaa waxaan samaysanaynaa request for quotation alaabta dalbanaynaa lacagtii wixii dhan markay gelino steps sii dheer waxa waaye inaan lacagtii aan bixino. Meesha waxaa ku jiro payment ku jiro. Waxaa ku jiro meeshan payment ku jiro. Hadaa meeshan fiirsi step waxa waaye pay inaan lacagta aan bixino. Marka intee saameynaa marka transaction-ka xaguu saameynaa. Transaction-ka wuxuu saameyn doonaa cash on hand iyo inventory. Maadaama aan alaabta waxaa lagu gadan doonaa cash on hand wuu yaraan doonaa oo $1000 ka goy doonto. Inventory-gana wuu badan doonaa alaab soo gadanay. Casharka ku xig wuxuu noqon doonaa funded refund cash. Alaabtii aad soo gadnay inaan iska celinaa rabnaa ayadoo alaab cash lagu soo gaday inaan refund sameyno. Awal waxay ahayd alaab deyn aan ku soo qaadnay inaan refund sameyno. Cashiraantii hore waxay ahaayeen inaan example ahaan return item to vendor. Marka hadda marka alaabta loo celinayo kale waxay ahayd deyn ayay ahayd lacagta ma ahayn cash. $700 deyntii nagu lahaa bisa naga yaraanayso. Laakiin cashirkan kaas oo ka duwan yahay oo alaabtii hadda aan soo gadnay lacagteena waxaan rabnaa inaan ka ceshano. Marka alaabta la celinayana waxaa la mari jiray 2 step in kooda return product badeecadii la celiyo oo warehouse-ka laga saaro. Saasna waxay ku dhici jirtay in inventory la tago operation transfer receipt alaabta numberkeeda ama order number la doorto return la dhaho. Step-ka labaad oo la marayna waxay ahayd refund in la sameeyo. Markaan refund sameynayna wax dhan soo gelino waxaa dheer step-ka lacag celinta. Lacagta ceshanayna meesha gelinayna hadba item-yada aan celinayno. Tusaale ahaan haddii 2 shay aan celinayno 2 shay qiimahooda waxay u dhigmanaysaa $400. hal shay hadaa celinayno saas oo kale. Marka intee u saameyn doonaa dhacdada inta xagee saameyn doontaa. Dhacdadan waxay saameyn doontaa cash on hand-gii oo hadaa yaraanayay iyo inventory-gii saameyn doontaa. Cash on hand lacag noo soo laabanayso wuu badan doonaa. Inventory-gana wuu yaraan doonaa maadaama badeeca ay banaanka ku dhacayso. Marka aan isla sameyno marka waxaa imaataa database-kaada imaaw ama odoo.com waxaa tagtaa qaybta accounting markaad tagtid waxaa soo fiirinaynaa trial balance meesha uu marayo si aan u ogaano dhacdada isbedelka ay sameyn doonto. Trial balance hadda waa kaasa oo xisaabtii shalay meesha uga tagnay ayuu marayaa. Marka waxaan dhahnay waxaan tagaynaa application-keena purchase request for quotation aan joognaa ama inta waa tagi kartaa request for quotation then new aan leenahay. Alaaba soo gadanayna moogtahay. Waxaa ka soo gadanaynaa shirkaddan loo yaqaano Softage. Waxaa ka gadanaynaa Lenovo Core i3 oo 5 xabo ah. Marka waxay isku noqonay $1000 isku noqonay. Marka waxaan leenahay request-gaan aan dirsanaynaa oo alaab qabshashada ah confirm aan leenahay. Confirm markaan dhahno waxaan leenahay alaabtii waa helnay receive alaabtii store-ka soo geli intaana dalbatay intaana helaysaa warehouse in waaye validate. Alaabta hadda waa helnay inaan biilka dalacnaa rabnaa waxaa tagnaa purchase order
waa kana waiting bill $1000 aan u taagan waiting bill-ka ah waxaa leenahay check saar create baa leh create bill markaa dhahno date-ka sax date-ka markaa saxdid confirm haddaan dhahno oo aan meeshaan uga harno hadda meeshaan haddaan uga harno waxay noqon doontaa $1000 deynay noqon doontaa account payable-ka iyo inventory-ga badan doonaan si deyn aan aysan u noqon meeshaan waxaan ku faninaa pay oo lacagta bixi lacagta meesha laga bixinaa akoonnada waa kuwana salaam banki aan hadda cash on hand ka bixinaynaa dhan waa $1000 haddaa kala reebaysidna meeshaasaa lacagta gelin doontaa oo inta hadda aad ka bixinaysa partial payment waa noo imaan doonaa oo lacagta qayb intaa bixisid qaybta kale deyn lagugu yeelanayo waxaa leenahay create payment waa kana hadda lacagtii waa bixinay $1000 waa bixinay oo waxay ka goday cash on hand ka goday waxaan imaanaynaa trial balancing trial balancing hadda waa isbedel ku imaaday waa ujeedaa cash on hand waxaa ka go'ay $1000 $6,000 oo ahay $1000 ka goday $5,000 oo noqday inventory-gana waa kana asna $1000 ku darsamay $10,000 oo ahay $1000 ku darsamay $11,740 ayuu noqday marka dhacdadaas hadda way dhacday oo lacagtaas hadda waa bixinay dhacdada ku xigta waxay ahayd in aan sameyno return inaan sameyno inaan alaabtii soo celino funderkii hal shay aan ka soo celino alaabtii yacni 5 shay aan keensanay waxaan rabnaa hal xabo ka mid ah inaan celino oo $200 hal xabo Lenovo aan noo shaqeyn waayay marka waxaan tegaynaa meeshaan receptiga labada meel waa ka celin kartaa oo ah inta inaad tagtid purchase aad tagtid dhacdadii aad ku gaday aad tagtid $1000 ama inta aad tagtid aad dhahdid receptiga aad dhahdid wuxuu ku geenaa adoo waxay ka mid tahay adoo tagay inventory badeecadii caadi u tagay warehouse income waxaan rabnaa waxaan leenahay return alaab baa celinaynaa 5 xabaa dalbanay 5 xabana waa helnay waxaan celinaynaa hal xabo ka mid ah celinaynaa halkaas xabo u dhigma $200 return dheh warehouse out waaye ma hubtaa lagu leeyahay hal xabo inaa celisid faalidaa leenahay waa huba alaabtaas hadda warehouse out waaye way baxday alaabtii way ka baxday meesha okay haddaa imaatid request for quotation oo aad tagtid meeshaan bilka dalacitaankiisa kanana sugaayo waxaana sugayso $200 inaad bilkeeda dalacdo hadda marka waiting bill waaye markaad soo tagtid purchase order waiting bill waaye jigta saar waxaa dhahdaa create bill bilka dalaaca billeedka geli meeshaan oo $200 la dalici rabaa marka confirm aa leenahay bilkan waa la dalacaya confirm marka haddii deyn ahaan lahayd meeshaana uga hari lahayd laakiin maanta deyn maaha lacagteeni waxaan rabnaa inaan soo ceshino oo cash aan kusoo ceshino oo ay noo soo gasho cash on hand haleena marka cash on hand ay noo soo galay create payment aa leenahay so lacagtaas hadda waxay noo soo gashay $200 cash on hand ay noo soo gashay waana laga jaray qaybta xaggan cost for quotation that 5 xabo oo quantity aa dalbanay 4 aa helnay 4 aa bilkooda dalacnay meesha way saxan tahay hal xabo iska celin haddaa tagno meeshaan reportingka oo ku dhufana trial balance meesha haddaayay $5,000 ahaa cash on hand xasuusno $1,000 ka go'ay $5,000 ka go'ay $5,000 ahaa markaad meeqa u noqday $5,200 oo noqday meeshaan way ka go'ay account kan way ka go'aysaa inventory waa ka go'ay inventory-gana waa ka go'aysaa lacagtaas alaabta waa celinay warehouse out waaye inventory-gana waa ka go'i doontaa kanna waa ku darsoomi doontaa marka cashirka maanta intaas ku egyahay purchase meeshaasaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa bilaabi doonaa applicationka kale ku xiga oo loo yaqaano sales marka insha allah la socosho wanaagsan